xaaladda gobolka Sool ayaa wali ah mid taagan. Somaliland waxa ay ku guul daraysatay inay hesho odayaal dhaqan oo laascaanood taga. Dhammaan duubabkii ugu saameynta badnaa Somaliland ayaa eedayn u jeediyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa. Isimada dhaqanka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa kulankoodii ugu horeeyay uga bilaaban doona maalinta Sabtida ah oo ku aadan berri. kadib markii ay halkaas wada gaareen dhammaan isimada goboladaas ka soo jeeda, waxaana shirka laascaanood indhaha si weyn ugu haya bulshada Soomaaliyeed oo idil. dhinaca Somaliland waxaa la eegayay dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay doorka ay xiisadan ka qaadan doonaan odayaasha dhaqanka ee Hargeysa iyo Burco ku sugan ama isimada Isaaq, kuwaas oo ay bulshada Somaliland shacab iyo dawladba fiirinayeen doorkooda ku aadan xal u helidda xiisadda laascaanood. laakiinse taas beddelkeeda isimada ugu waaweyn gudaha Somaliland ayaa dhaliil u jeediyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayagoo ku eedeeyay inuu kala geeyay beelihii wada deganaa Somaliland. dhaqankaasna ay mar hore Muuse Biixi kala tageen, waqtigaana aysan diyaar u ahayn inay ka qayb qaataan qadiyadda laascaanood, taasi oo muujisay sida ay u kala fogaadeen waxgaradka Somaliland iyo Korneyl Muuse Biixi oo 5 sano xafiiska jooga 2 sano oo dheeriyana ku darsaday. waxaana halkaas laga akhristay inuusan Muuse Biixi xilligan keeni karin xalka laascaanood, waxaana laga cabsi qabaa inuu isticmaalo awood ciidan maadaama uusan hayn waqtigan xal ka duwan kiisii hore. waxaana dhowrkii habeen ee la soo dhaafay la soo warinayay in ciidamo tiro badan laga kala keenay magaalooyinka Hargeysa, Burco, halka ciidamadii Somaliland ee ku sugnaa Jiida, Tukaraq iyo Yube in badan oo ka mid ah la dulgeeyay magaalada laascaanood, iyadoo ay dhinaca kalena laascaanood ku sugan yihiin ciidan aan ka amar qaadan Somaliland oo sugaya amniga garaadada dhulbahante ee halkaas isugu tagay. waxaana maalmihii la soo dhaafay magaalada laascaanood lagu soo bandhigay ciidamo u abaabulan habbeeleed oo diidan Somaliland, taasi oo sawiraysa inay laascaanood gali karto dagaal hubaysan. marka la eego doorka maqnaanshaha ee duubabka dhaqanka iyo waxgaradka Somaliland, waxaa muuqata inay dayaceen doorkoodii ayagoo la ficiltamaya Muuse Biixi Cabdi oo ay siyaasad ahaan isqaadan waayeen. waxaana dadka fikirkooda ka dhiibtay maqnaanshaha waxgaradka Somaliland ee arrinta laascaanood ay ugu baaqeen inaysan dalkooda u burburin ayagoo qof eeganaya, aysanna Muuse Biixi kaliya ku fiirsan xal u helidda gobolka Sool, ayna tahay inay u midoobaan sidii loo dejin lahaa xaaladda ka taagan gobolka Sool. dhinaca kalena waxaan caddayn doorkii xisbiyada mucaaradka Somaliland ay ku lahaayeen qadiyadda gobolka Sool ka taagan ayagoo ka dhuuntay arrintan. sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Uxud ee Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe oo si weyn loogu yaqaanay inuu difaaco qadiyad walba oo saameynaysa Somaliland ayaa waayadan la waayay doorkiisii uu ku lahaa xalka laascaanood, isagoo ka gaabsaday. daawada sidee u aragtaa xalka laascaanood? maxayse tahay aragtidaada ku aadan xiisadda laascaanood ka taagan?